iyadoo maalintii afraad ay gashay qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota deegaamada gobolka Saraar ayaa goobaha kala duwan ee laga qaadanayo kaarka diiwaangelinta codbixiyayaasha oo aanu booqanay waxa ay indhaha iyagu qabanayeen wadadka kaarka doonaya ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta sidoo kale waxa indhaha iyagu qabanayeen gaadiid tiro badan oo lagu soo laba dhigayo dad doonaya inay kaar ka qaataan deegaamada gobolka Saraar kuwaas oo laga soo gurayo deegaamo fogfog sida gobolada Zool, Togdheer iyo goobo kale waxaana dadweynahan ay codsanayeen inaan ku filayn waqtiga la siiyay ee loogu tala galay inay kaar qaadashadu socoto iyagoo sidoo kalena codsaday in loo kordhiyo maalmaha kaarka la qaadanayo anigu waxaan ahay dadka laga soo qaaday dhaxdheer xalay fiidkii baa la iga soo qaaday ilaa 10 saac baa gaarigu ila soo socday dadka meesha aan kaga imino waa dhowr boqol oo qof ilaa aan kaarka qaadanay ilaa gurigayga 5 qof oo kale kaga imi baabuurtii hadeer ay ku noqotay doontay dadka iyaga xalaysadana reebii iyo xooli baan ku noqonaynaa kuwii kalena in la soo qaaday doonayaan dadka meesha ku hadhayna waa dhowr boqol oo qof wiig baanay ka dhammaanayn oo bilaa kaar ah markaa waxaanu doonaynaa maamulka codsigiisa in la aqbalo oo loo kordhiyo goobaha iyo muddadaba darawalkii gaarigan waday baan hay iminka idin muuqda waxaan ka soo qaaday Hargeysa ilaa shalay waa laba gurayay ilaa Doraad intii ay bilaabantay waan gurayay iminka oog baan keenay iminkana waa noqonayaa goobtan ka soo qaaday way dad badan baa jooga waxaanu doonaynaa ciyaar caddan layga keenay dadkii oo dhammaan ciyaar caddu jiray reer miyigaygii in la soo qaadaan rabaa waana bilaakaad weligoodna ma qaadan anigu waxaan ka imi xilxil dadkiina waxa weeye dad badan oo fara badan baa meeshii ku hadhay waana la soo gurayaa waxaanu codsanaynaa in loo kordhiyo muddada barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadax xildhibaan Axmed Ducaale Bullaale iyo maayirada degmooyinka Caynabiyo og ayaa kormeeray goobaha kala duwan ee ka socoto kaar qaadashadu iyagoo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland u soo jeediyay inay kordhiyaan maalmaha ay soconayso diiwaangelinta codbixiyayaasha maadaama 4 maalmood aanay ku filayn in lagu soo daabulo laguna dhameystiro dadka haatan u baahan inay kaar qaataan halkan waxa weeye goobtii eeda ee degmada og iyo goobihii kaleba waxa weeye waa mashquul waxa weeye dee sida la og yahay dadka waxa laga soo guraya dadkii deegaamadan degi jiray waxay u hayaameen hawd kala baydh xidhxidh werwed 4 maalmood dadka hadee bari dalba oo hayaameen abaartu u kaxaysay dadka 4 maalmood gudahood laguma keeni karo alaanka baabuurtu way soconaysaa dadkana way keenaysaa hadday soo bilaabmeen hadday socdaan waxaan ku codsanaynaa komishanka guud ee qaranka in loo kordhiyo muddada maalintii ugu dambeysay saacadda waa 12kii kuyuguna intuu jiro waa la arkaa ummadii waxay aaday dhul kale fogfog bay aaday wataa sida barasaabku sheegay xildhibaanku codsigii hore waa la diiday laakiin maanta waxaan u baahannahay 20 sanduuq oo naloo reebo oo noqda 10 casho waliba qaata 20 sanduuq oo naloo reebo 10 casho qaata oo kuwa koonayaasha hawdka iyo kuwa waqooyi xigaba naloo ku reebo iyo laamiga bartankiisa naloo ku reebo goobaha ma yeelayno codsiga iyagii hore haddii la diiday ummadduna xaq bay u leedahay qof kasta uu muwaadino reer Somaliland dara inuu isdiiwaangeliyo gobolkan duruufo fara badan baa ka jira dadkii wuu hayaamay sidaa barasaabku sheegay meelo fogfog bay tageen saaka iminka dhowrkii casho ugu dambeeyey halkan aanu joognay baabuurta aanu u dirnaa hawdka ama qaarkood Puntland u dirnay ama qaarkood deegaamada kilka shanaad loo diray iyagoo 4 qof sida bay imanayaan ama 5 qof sida barina waa ku noqonayaan way dadkii reer miyiga hal mar ma soo wada fujin karo sidaan dadka magaalooyinka u soo rarayno weyn maalinta kana lagu ceshaa sida daraadeed waxaan codsanaynaa in waqtiga naloo kordhiyo waxa kale oo aan codsanaynaa in goobo badan naloo reebo waayo goobaha qaar waxaan ugu talagalaynaa inay dadka u guuray maxaa dhahdaa guban iyo siijeedku laga waraabiyo qaar dadka qabtay hawd in laga waraabiyo maanta waa maalintii noogu dambeysay maalmihii sharciga ah ee diiwaangelinta gobolka Saraar iyadoo ay dadka iyagii kala fiiqsan yihiin qaar ay jiraan dhinaca laascaanood qaar dhinaca kilka shanaad qaar dhinaca sanaag markaa waxaanu leenahay waa in loo kordhiyaa muddada dadkaygina waa kala maqan yahay gaadiid baa lagu soo gurayaa horaan u sheegnay codsigeygii hore dadkaygu maqan yahay dib noogu dhiga haddiina laga aqbali waayey maanta waxaanu leenahay waa in laga aqbalaa dadkayga waanu soo guranaynaa ma aha in dadka qaarra isdiiwaan geliyaan qaarra ay isdiiwaan gelin waayaan
maanta waanu soo guraynaa dadkii gaadiid baanu ku soo guraynaa kuwaas marba dee raabaa imanaysa waxaan leenahay in laga aqbalaa in naloo kordhiyo muddada goobaana naloo kordhiyo yaa sida aan maanta u jeedna annagu ama codsigagu daaran yahay waa sidaa in 4 koone dadkaygu waa naga xigaa xagga iyo sool waa naga xigaa xagga iyo sanaag waa naga xigaa xagga iyo saaxil wuu naga xigaa dhinac walba in goobo naloo dhigo aanu ku soo rarro jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba